السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دhow kororsa aqoon channel magacaygu waa Cabdilaahi Cismaan. Muuqaalkan maanta waxaynu ku baran doonaa qaabka loo format gareeyo Windows 10 ama qaabka loo format gareeyo computerka adigoo adeegsanaya Windows 10. Waxyaabaha la inooga baahan yahay inaan computerka format gareyno waxa kamid ah inaynu haysano Windows 10 ISO filekiisi, inaynu haysano USB flash ama DVD aynu haysano, balse waxa mar walba fiican inaynu isticmaalno USB flash. sidoo kale waxyaabaha la inooga baahan yahay waxa kamid ah software loo isticmaalo in laga dhigo mid bootable Windows-ka oo aynu isticmaali doono. waxyaabaha aynu arki doono waxa kamid intaanu muuqaalkan guda jirno sida loo soo download gareysto Windows 10-ka isagoo free ah saad ku heli lahayd, iyo noocyada flash-ka ee ku habboon in aad Windows-kaaga u isticmaasho si aad computer u format gareyso. badanka flash oo dhan looma isticmaalo, seeska inuu doona seeska flash-ta la inooga baahan yahay. sida loola soo dego Rufus oo ah software-ka lagu baangareeyo ama Windows-ka laga dhigo mid bootable adigoo adeegsanaya flash. marka software-ka waxaynu la soo degi doonaa Rufus, qaabka loola soo dego arki doonaa, iyo sida loogu baangareeyo Windows 10-ka. waxyaabaha kale inuu arki doono waxa kamid ah sida loo format gareeyo computerka oo practical ahaan baynu arki doonaa. dhammaan waxyaabahan aan ka sheekeynay oo dhan practical baynu arki doonaa oo itaabsiya oo waxaanu soo qaadan doonaa computer kale oo aynu format gareyn doono. okay, waxa kale inuu eegi doonaa muuqaalkani ayuu anfacayaa qofka muuqaalkan daawanaya uu anfacayo waa qofma muuqaalkani anfacayaa qof kasta oo raba inuu computerkiisa format gareeyo ama barto sida loo format gareeyo, qof kasta oo baahan inuu u soo wareego Windows 10 ama Windows kale ugu jiro Windows 8 Windows 7 waxaasa oo raba inuu Windows 10 u soo wareego uu computerkiisa ku shubto. qof leh computer uu virus ka galay ama qof uu computer virus ka galay oo raba inuu computerkiisa format gareeyo uu ka dhigo qaab sidii uu ahaa markiisii hore, ama uu wada masaxo waxa ku jira CD-da ama local disk-ga uu wada format gareeyo ama hard disk-ga waxa ku jira raba oo ka dhigaya computerka sidiisii hore ku soo celinaya. marka daawasho wanaagsan, la soco muuqaalka, step-iskan qaadayo la soco iyo waxyaabahan sameynayo. okay, step-ka koobaad aan qaadayo waxa weeyaan inaan internet-kii galo oo aan soo download gareysto Windows 10 inaan soo download gareysto. haddii aad haysato adigu waa sax weeyaan oo step-iska waad ka boodi kartaa. okay, Windows 10 waa inaan soo download gareysto horta marka koobaad. waxaan soo furayaa Microsoft Edge baan u isticmaalaa badanka, Chrome ma isticmaalo. okay, xaggan sare ayaan waxaan ku qorayaa Windows 10 download. Windows 10 download baan ku qorayaa, kabacdina waan search gareynaya. markaan search gareeyo halkan uu keenayaa. marka waxaad eegaysaa website-ka, tusaale ahaan kan imika waxa weeyaan waa microsoft.com buu ku dhex jiraa. marka kan weeyaan ka loo baahan yahay. markaad Windows 10 download ku qorto Google-ka wuxuu kuu soo saaraya, marka ka ugu horeeya kuu soo saaro oo ah kan ayaad click siinaysaa. markaad click siiso wuxuu ku geyn doonaa website-kii Microsoft. marka hoos baad soo dhaadhici, kabacdina tan ay ku qoran tahay download tool now baad click siino doorani. markaad ka doorato wuxuu toos u bilaabay marka download-ka. haddii IDM kugu jiro IDM ku soo saari, haddii kalena caadi uu xaggan hoos uga bilaabay. marka IDM bay ugu jira start download baan odhanaya. marka waa ma badna, waxa weeyaan 18 megabit oo kaliya, balse ma aha Windows-ki oo dhan kani. kani waa software loo yaqaano Media Creation Tool oo isagu inoo soo download gareyn doona Windows-ka. marka koobaad waa inaad kan soo download gareysato, kanna wuxuu ku soo download gareyn doonaa Windows-ka ama wuxuu ku soo download gareyn doonaa operating system-ka aynu u baahanay inaynu wax ku format gareyno. waan yar suganaa, waqti yar bay qaadanaysaa iyadoo ay ku xidhan tahay speed-ka internet-ka aad haysato. okay, download-kii hadda wuu inoo dhameeyey. waxaan soo furnaa file explorer-keenan si aynu file-kii u eegno, kabacdina waxaanu tegaynaa downloads-ka. downloads-ka wuxuu kasii gelayaa programmes-ka, kabacdina halkan waxaa kusoo qormi doona Media Creation Tool waa kaa weeyaan. kabacdina waxaan samayn doonaa counter right click baan odhanayaa si aan u copyisto ama aan cut u siiyo. cut baan siinayaa, waxaan geynayaa meel gaara, waxaan geynayaa desktop-kii Windows-kii dhiibaan taabanaya si aan desktop-kii degdeg uga tago. kabacdina halkan aan ku samaysanayaa folder cusub oo loo yaqaano Windows 10 ama OS oo operating system u taagan. kabacdina waan dhex gelayaa. markaan dhex galo gudihiisa waxaan sameynayaa inaan halkan ku paste gareeyo anigoo taabanaya Ctrl iyo V. marka halkan keeno kii aan soo copyistay ama aan soo download gareystay waxa weeyaan software ii soo download gareyn doona software-kani operating system-kii ama Windows 10-kii. kanaan gudihiisa geli doonaa, double click baan siin doonaa.
markaan double click siiyo daaqad buu soo saari doonaa daaqada waxaan oran doonaa yes markaan yes daaqada taabto wuxuu soo saaraya markaa halkan daaqadan Windows buu soo qori waan yar sugayaa wuxuu qaadanaya step yar buu marayaa iyadoo ku xiran tahay speedka internetkaaga iyo computerkaaga okay uu bilaabay wuxuu yiri getting a few things ready waan suganaa waqti yar buu qaadanayaa daaqadan ayuu keenay markaa daaqadan ayuu keenay waxaan sameeynaa daaqadan accept baan iska oranayaa inta dad doonto akhrido ama waxba akhriin accept iska dheh marka accept sidoo kale daaqadan kale ayuu soo saarayaa waan suganaa okay halkan uu ku keenayaa markaa halkan wuxuu ku leeyahay upgrade this PC now ba ku dooran marka macnaheedu waxa weeyaan hadii uu tusaalahan Windows 7 kugu jiro ayaad upgrade kareyn kartaa oo ka dhigi kartaa Windows 10 balse anigu waxaan doonayaa create installation media oo ah USB flash drive oo kale iyo DVD kuwaas doonana marka tan labaad baad uu ka dooranaysaa marka tan labaad ka doorato waxaad oranaysaa next kabacdina halkan wuxuu ku leeyahay use recommended options hadaynu tigtan ka qaadna halkan waxaynu ka dooran karnaa marka language-ka bedeli karnaa oo noocan doonan ka dhigi karnaa halkan Windows-ka bedeli karnaa Windows waa Windows 10 balse waxaynu bedeli karnaa halkan 32 bit ka dhigi karnaa ama both baynu ka dhigi karnaa marka 64 bit ka ku daa use recommended ka ku daa use recommended macnaheedu waxa weeyaan sida uu isticmaal lagu gula talinayo ama qaab kale lagu talinayo weeyaan qaabkani isaguna la rabo balse hadaan tigta ka qaadno marka waynu ka bedeli karnaa 32 bit hadii doonayso ka dhigan kartaa okay use recommended baan ka dhigayaa ka bacdina waxaan oranayaa next markaan idhaahdo halkan wuxuu ku oranayaa USB flash drive iyo ISO file marka waxaanu inagu sameeynaa kan labaad ee ISO file baan ka dooranaa ka bacdina waxaanu oranaynaa next baan oranaynaa next markaan idhaahno waxaynu oranayaa halkaad ku save gareyn lahayd file-kan halkaynu dhiganaa file-kan marka desktop kale aynu dhiganaa ka bacdina folder-kii operating system-ka aynu la baxnay waan dhiganaa ka bacdina save baan oranaa marka wuxuu noo soo load gareyn doonaa operating system-kii ama Windows 10-kii oo dhan oo loo yaqaan Windows 10 ISO file oo ah file-kii aynu u baahnayn ka bacdina save baan oranaa markaan save idhaahno halkan ayuu ka bilaabayaa download-kii halkan progress ka bilaabay 0% marka wuu wadaya halkan waqti bay qaadanaysaa waayo waa 4 GB iyo dheeraad waqti badan bay qaadanaysaa waxay noqonaysaa inaad dhowr saacadood sugto hadii internetka speedkiisu fiican yahay oo xoogaa bad sugi hadii kalena waqti aad u badan bay qaadanaysaa marka hadda anigu waxaan sameynayaa horaan soo download gareeyay waan joojinayaa oo waan jarayaa okay markaad adigu hadaba download ka dhamaysato oo soo download gareysato halkan uu ku iman doona ama halkii aad ku save gareysanaysi ayuu ku iman doonaa markii hore aad save ku tiri marka imka halkan uu yimid windows.iso marka Windows 10 kii oo dhameystiran waa 4 GB weeyaan iyo dheeraad waliba waa 4 GB iyo badh weeyaan marka waxaan bilaabi doonaa inaynu ku gubno flashti intayna flashti ku gubin waa inaynu la soo degno software-kii la oran jiray Rufus ee aad kaga dhigasay mid ku gubmaya flashta ama aad ku beengarinaysa flashta ama mid bootable aad kaga dhigasay marka waxaad tagaysaa Rufus baad tagaysaa halkan ka bacdina waad search garaynaysaa dhammaan waxyaabaha waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka linkiga description-ka ku soo dhigi doonaa ka bacdina kan horeeyad galaysaa marka saa u gasho wuxuu ku geynayaa website-kan ku geynayaa hoos baad soo dhacaysaa ka bacdina hoos halkan download ay ku qoran tahay kan ayaad ku dhufanaysaa Rufus 3.12 portable ka bacdina click baad siinaysaa marka ka click siiso wuxuu bilaabay inuu ku download gareeyo waana 1.9 megabyte ka bacdina marka saa ugu dhufato ilbiriqsigeeba uu ku download gareynaya marka uu ku download gareeyo waxaad tagaysaa downloadskaagii ka bacdina halkan ku soo dhigay waa kan Rufus ka bacdina waxaad qaadaysaa control iyo x baad taabanaysaa cut ka bacdina waxaad geynaysaa folder-kan sameysnay oo OS aynu u bixnay oo aynu wax walba ku urursananay ka bacdina waa kan hadda halkan maxaynu ku haysanaa dhammaan waxyaabaha aynu u baahnayn badankooda waan haysanaa waxaynu soo download gareysanay markii koobaad media creation tool oo aan description-ka u horeeya ku dhigayo linkiga u horeeya markaad ka soo download gareysato ka stepskii aan maray baad maraysaa waxaana kala soo degaysaa Windows 10-ka Windows 10.iso la soo degaysaa ka bacdina waxaad la soo degaysaa Rufusna waxa weeyaan waa software-ka aad Windows-ka kaga dhigaysid mid ku shaqeyn kara ama mid ka soo kici kara computer-ka ama flash-ta aad ugu gubaysid okay inta markaad samayso waxaad sameynaysaa flash baad u baahan tahay flash-ta aad u baahan tahay hadaba waa noocee flash-tu waxaad aragtaa halkan imika Windows-kani waxa weeye waa 4 GB iyo badh marka flash-ta aad u baahan tahay 4 GB na ma noqon karto waxay noqonaysaa 8 GB ama wax ka weyn waa inay noqoto flash kasta way ku noqonaysaa oo ka weyn laakiin 8 GB ama 8 GB iyo wixii ka weynaa afar laakiin kuma noqonayso waayo isagiiba afar iyo dheeraad hadda flash dibaan soo gelinaya computer-kayga markaan flash soo geliyo
flash dib aan hadda soo geliyay ka bacdina waxaan tagayaa on iska xidhay daaqada soo booday ka bacdina software kan aan soo kicinaya Rufus ay ku qoran tahay double click baan siinayaa ka bacdina daaqad yar baa ku soo baxaysa daaqadaasi wax laga yaabaa imika inay duubmayn waayo badanka daaqadan ma duubo software ka iyo duubaya screen recording-ku ama software-daas ma duuban marka yes baan odhanayaa yes markaan idhaahdo daaqadaa ku soo baxday waxa furmi doona marka yes baad soo odhanaysaa markaad yes tiraahdo halkan uu ku keenaya bartan ayuu ku keenaya halka u horeysa wuxuu ku dooray markiiba flash dib ku dooray flash ayuu dooray haddaan flash hadda ka saaro oo taa halkaas way isbedesho wax uu ka baxay waxba kuma jiraan laakiin haddaan hadda flash soo geliyo ku soo celiyo hal mar flash waxa aragtaa halka flash ka soo baxay flash ah oo 16 GB inta markaad samayso waxaad u baahan tahay halkan select inaad taabato select markaad tiraahdo waxaad u baahan tahay inaad tagto meeshii uu ku yaalay software kan ama operating system ku wixii yaalay desktop ka ka bacdina meeshan OS ku ka sii yaalay waana kan windows.iso ay ku qoran tahay waa software kan halkan yaala open baan odhanaya open markaan ku idhaahdo halkan uu sani keenaya halkan waxba ka bedelin taas sare halkan ayaa muhiim halkan aad ay muhiim u tahay computeradu halkan way ku kala duwan yihiin computerkaad format garaynaysa ayaad soo ogaanaysaa hard diskigiisu inuu yahay GPT ama inuu yahay MPR ama inuu yahay MBR sideed ku ogaanaysaa waxaad tagaysaa halkan start ka tagaysaa ka bacdina waxaad oranaysaa right click baad oranaysaa right click markaad tiraahdo waxaad ka dooranaysaa disk management markaad doorato wuxuu geyn doonaa hard diskigaaga buu ku tusi doonaa oo yar sugana waqti yar buu qaadanaya waa kan uu soo furmay disk management waa soo furmaya okay waa kan noo soo furmay halkan wuxuu ka soo saaray marka flash inoogu jirta iyo hard diskigayga kan zero-gaad mar walba tagaysaa kan zero-gaaba tagaysaa mar walba ka bacdina right click baad oranaysaa properties baad ka dooranaysaa halka intaad right click tiraahdo properties ka dooranaysaa maxaan sameeyay halkan aan tagay ka bacdina right click baan idhi properties baan ka doortay properties markaad ka doorato halkan daaqadana ku soo baxaysa daaqadan volume markaad tagto halkan partition style ay ku qoran tahay halkan imo qaybta partition style ku qoran tahay maxaa ku qoran master boot record MBR markaad soo aragto waxa weeyaan computerkan hadii aan ku baangareeyo doonayo oo uu yahay kii aan format gareynayay waxa weeyaan ama computerka soo format kana sarkan sheegaysa MBR baad ka dhigaysaa marka yani halkii Rufus baad imanaysaa halkan GPT da waad ka bedelaysaa MBR baad ka dhigaysaa markaad saa uga dhigto start baad oranaysaa start markaad tiraahdo wuxuu ku oranayaa waan format gareynayaa ama wuxuu ku oranayaa daatada kugu jirta flashtada waa la format gareyn doonaa oo flashda waxa laga dhigayaa mid format gareysan oo lagu shubay Windows ku kaliya yes okay bas qornaysaa laakiin marka hore waa inaad xogta kugu jirta flashta aad meel kale ku sii dhigato backup ka samaysato okay baan odhanayaa okay markaad tiraahdo halkan ka bilaabay marka formatting flashta iyo inuu ku gubo ama uu ku baangareeyo Windows-kii oo uu ka dhigo mid bootable inta yar marka intuu dhameeyo waan suganaa xogaa waqti buu qaadanayaa marka imika waqti buu qaatay waan yar eriyay videoga iyadoo ku xiran tahay hadba speedka computerkaaga imika wuu koobiyeynayaa weli wuu wadaa wuxuu marayaa 98.2 hadda wuu dhadhow yahay marka waan isla eegi doonaa okay wuu dhameeyay completely way okay ready halan ku soo qoray close baan iska odhananaa okay daaqadahan waan iska xidhayaa waan iska wada xidhayaa hadda flashtadii waxa ku baangareysan ama waxa bootable ku ah Windows-kii waka maxaan ku ogaan karaa this PC tag ka bacdina waxaad samaysaa flashta ka saar markaad ka saarto flashta mar labaad ku soo celi markaad ku soo celiso flashtii waxa yeelanaa icon-kaas yeelanaysaa okay icon-kii flashtu isbedelay wuxuu noqday waka icon-kaas uu noqday magaciisa xataa uu isbedelo ESD buu noqday /ISO
marka flashtan hadda waan qaadayaa waxaan la tagayaa computer kale oo aan format gareynayo marka waxaan sameyn doonaa marka computerkan format gareynayo screen recording ma sameyn karayo waxaan adeegsan doonaa mobile-kaygaan ku duubi doonaa screenka computerka marka daawasho wanaagsan inuu la format gareyno هذا فلاش دون كساري كان وحنا اللي تجي كمبيوتر كله بسم الله الرحمن الرحيم ان وحنا بلعب دونا انه فورمات قرينا كمبيوتر كمبيوتر كان فورمات قرين دونا وا كان و اتش بي الايت بوك ان اي استبسكي هوري وانس انت قيبت هوري فيديو ayaad ku soo daawatay istabiska la sameeyo marka flash diina waa tan waxaan ku soo baangareeyay Windows-ki wixii ugu jira marka flash-tan marka flash-tii waan ku soo gubay Windows-ki waxaan kaga dhigay mid bootable kabacdina waxaan soo galiyay marka ay computerkii marka inta sameeyso waxaad sameynaysaa computerkii waad shidaysaa ama hadii uu shidnaa restart baad ku sameynaysaa hadda waan shidayaa marka aad sidaa u shido waa inaad taabato button-kan escape ama waa inaad taabato F9 intuu soo shidmin waniga imika soo shidmaya kabacdina escape baan la dhacaya escape button-ka escape baan ku celinayaa kabacdina waxa ku soo baxaya qoraalka yar baa ku soo baxaya intaas markay ku soo baxdo waxa taabanaysaa marka boot device options kaas dooranaysaa oo F9 F9 ayaa taabanaysaa keyboardka F9 waa tan wax weyn waa kan weey F9 waa ta F9 baan taabanaya markaan F9 sidaa u taabto halkan iga soo saari doona daaqadan kale boot options oo halkii uu ka soo furmayay computerka kabacdi waxaan dooranayaa anigoo isticmaalaya arrowska yani keyboardka oo down arrowga iyo up arrowga waxaan ka dhigi doonaa hoos ayaan soo dhaadhici doonaa oo ka u sareeya wax weeyaan waa notebook hard drive oo waa hard drive ka soo furan hadaan ka imika doorto sidii si caadi ah u soo furmi doonaa marka waxaan dooranayaa kan dhexe hoos baan soo dhaadhacaya arrowgan hoose ayaan taabanaya hal mar kabacdina ka hoos soo dhaadhacay arrow hoosan taabanaya kabacdina waxaan taabanaya enter key ayaan taabanaya keyboardkaaga ayaan taabanaysaa enter markaad saa u taabato shaashadan ay ku geynaya marka shaashadan uu geynaya waad yar sugaysaa waxoogaa waqti bay qaadanaysaa waad iska yar sugaysaa waqti yar buu qaadanayaa waad sugaysaa okay waka Windows-ki ayaa halka ka soo furmay Windows 10 ayaa halka ka soo furmaya kabacdina daaqadan ayuu ku geyn doonaa daaqadan wax weeyaan waa halkii aad Windows-kan ka set up gareyn lahayd marka wuxuu ku leeyahay language-ka kale iyo time-ka okay waxaad ku daysaaba marka waxaad ku daysaa next on day sidiisa ku daa kabacdina Windows-ki waa inaad ku duubto micnaheedu halkan waxaad oranaysaa install now baad ka dooranaysaa kabacdina uu bilaabaya waad sugaysaa adigu wax kale ma taabanaysid okay halkan ku geynaya waxa weeyaan marka halkan waxaad oranaysaa I don't have a product key marka halkan hadaad Windows-ka iibsatay ayaad key gelinaysaa balse dib ayuu ka activate gareyn doonaa waxaad ka dooranaysaa I don't have product key markaad ka doorato daaqadan ku geynaya Windows-ka nooceed ku shubanaysaa weeyaan waxa ugu horeeya Windows Home N marka waa versionada kala duwan ee Windows 10ka ee available-ka inoo ah marka Windows 10 Pro-gaasan ku deynana kabacdina waxaan oranaa next baan oranaa Windows 10 Pro raali ka ahaada waxoogaa muuqaalku haduu yar go'an yahay gacan waan ku duubaya gacanna waxaan ka isticmaalayaa computerkii sidoo kale waxaan ku duubayaa waa mobile ee maaha kamarad next baan iska oranaya marka halkan Windows 10 Pro intaan ka doorto ama Windows Home hadba kii aan doonayo okay daaqadan ku soo saaraya waxaad oranaysaa I accept license kaas aad tick saaraysaa kabacdina waxaad oranaysaa next markaad tiraahdo wuxuu ku oranayaa upgrade install Windows and keep files settings and applications taas sare micnaheedu waxa weeyaan waxyaabihii ku jiray computerka ma saarayo balse uu upgrade kareynaya oo Windows-kan hadda aanu ku wadano buu ku upgrade kareynaya balse waxaan dooranaa inagu custom oo hoos baan soo dhaadhacana kabacdina enter baan taabanana halkan wuxuu kaaga soo saaraya marka partitionskii computerkaaga marka ka koobaad waxa weeyaan waa drive O partition 1 system reserved ka dambana waxa weeyaan partition 2 marka xaggan hoose wuxuu ku soo dhigay optionski inaad format gareyso iyo inaad delete gareyso okay marka kan ayaan dooranaa dambe drive partition 2gan kabacdina waxaan oranaa format si aan u format gareyno computerkii format baan click siinana wuxuu ku leeyahay halkan wuxuu ku soo saarayaa this partition might contain important files or applications partition kan kamida computerkaaga ama hard drive-kaagani waxa laga yaabaa inuu ka kooban yahay ku leeyahay application ama important files ama file muhiima
Okay, if you format this partition book leeyahay any data stored on it will be lost. Data kasta oo ku jirtay way lumasa. Marka okay baan iska odhanaa. Okay baan hadda idhi. Markaad okay tiraahdo uu format garay hadda. Waxaan dooranayaa marka next baan odhanayaa next. Ka sare isaga waxba kama taabanayo. System reserved baa kala dhahdaa. Marka next baan odhanayaa. Next baan idhi. Ka bacdina halkan wuxuu bilaabayaa inuu ku install gareeyo Windows 10. Windows ki caadi uu install gareynaya waxba adigu ma taabanaysid halkaas uu tirin doonaa mid walba marka waqti bay qaadanaysaa waad iska sugaysaa waad u soo noqonaysaa hada doonto iska tagaysid ku soo noqonaysaa adigu ma taabanaysid marka waxa laga yaabaa in video dheeraad hadaan intuu intaas oo dhan wada aan duubo waxaan sameynayaa video-ga waan joojinayaa ka bacdina markuu dhameynayo ayaan dib isugu soo noqonanaa Okay, adaba waxa uu sameeyay inuu isa soo restart gareeyo. Waan suganaa uu isa soo restart gareynaya. Adigu intaas oo dhan ma taabanaysid. Isaga hawlihiisa qabsanaya. Uu dhameeyay intii yareedan imika video-ga kala jaray oo uu dheeraanay video-gu. Waan suganaa intuu inoo dhameynayo. Isagoon baan taas wada anigu farma saarayo. Laakiin meelahan waa halis weeyaan. Meelahan imika soo marin oo dhan haddii computerku uu ka dabka kale ka dhaco ama uu demo ma fiicna badanka marka mar walba waa inuu dabka kugu jiro marka formatting ko kala sameynayso computerka dhowr camera ugu horeeyay baan naga doonayaa inaynu action sameyno balse inta dambe oo dhan isaga is wadaya adigu ma taabanaysid inta dambe oo dhan anigu ma taaban isagu baa is waday just a moment يربط وكادنسا مودير سوسا اوكي انسوغنا marka uu inoo dhameeyo formatka wuxuu inaga baahan doonaa inuu driverska qaar kooda inuu update gareyno marka inuu eegi balse uu shidmo iyo suuq soo baxo balse hadda waynu dhameynay formattingki saas ay ku dhayn formatku hadda uu dib isku soo shidayaa waa kan wuxuu ku leeyahay luqadda dooro marka ku daaba United States kan ka bacdina yes baan ka dooranayaa yes ku daakana keyboardku inuu weydiinaya skip iska dhakan network buu doonayaa okay aan ku xiriirinayaa ama waxa iska oran kartaa I don't have internet halkan ku geynayaa continue ba iska dheh limited setup waxyaabaha imika isuma daalinayno magacaadu bixinayso waxaan u bixinayaa Haydarus oo ayna computer kale intaasaan ku qoray ka bacdina waxaan hagan next baan oranayaa password wax password next baan iska oranayaa marka password ma baahnin dib ayaan ka sameyn doonaa okay Cortana not now okay wuu dhameeyay hi bukuli We are getting everything ready for you. This may take several minutes. Okay, waxay qaadan kartaa kuuli dhowr minute. Don't turn off your PC waa xaga hoose ku qoray maragtaa. Abaqtiin computerkaaga marka haddii uu dabku ka dhacayo ama battery ka sii dhacayo waxa laga yaabaa in uu isbaqtiyo computerku taasina ay cilad ku keento ilaa steps hore markaan soo wadnay marka mar walba waa inuu chargerka kugu jiro ama aad hubtay in ku buuxo kuna haynayo waqti badan okay wuu dhameeyay weynina ku guuleysanayna computerkii format garayno computerkiina waa si qurux badan inoogu dhamaaday formattingkiisii waynu ku guuleysanay hadda waan format garaynay waxba kuma jiraan computerkii oo uu maran yahay programmingkii wixii dib loogu duubo buu baahan yahay okay marka waan dhamaynay kaliya wuxuu doonayaa inuu xogaa driverska yar eego oo check gareeyo update na nidhaahdo balse formatting kuwaba intaaba Windows ka soo qaadanaysaa waad ku baangaraynaysaa flashtaada oo bootable baad ka dhigaysaa computerkaada la imanaysaa computerkii baad raadinaysaa booting numberkiisa waad soo boot garaynaysaa ka bacdina waba intaaba steps garaan maray weey formatku inuu wax weyn lagaaga dhigin that simple on dhamaynay fadlan haddii aad videogan fadlan ku xidhno channelkayga
la soo muuqaaladan soo gelino sii share garee wixii talaya tusaalahana commentiga noogu reeb. Thank you very much.